سلام خير. أنا عتلدني waxaa ku socotaa cataladani dhalinyarada aan weli guursan doobabka maxaa la dhahaa dhalinyarada soo koraysa oo naagadoonka way ku socotaa. marka koobaad waa anigii oo ka soo hadlaaya xaafiiskaygii aan ku shaqaynayay shaqadaydii xaafiiskii baan ka soo hadlaaya dhaxdiisa u ogaada inaan xaafiiska ku jiro oo shaqada ku jiro ka shaqaynayo waxba ku mashquulinina waxyaalaha kale intaas u ogaada hareerahayga iyo geesahayga iyo waxaas iyo dharkayga iyo waxaas ku mashquulinina waxaad fiirisaan oo kaliya oo aad isku daydaan inaad fahantaan aqliga ay idin soo gudbinayo maskaxda ay idin soo gudbinayo madaxiina gashada hadalka idin soo gudbinayo maxaa la dhahaa xigmadan ka soo maaxanaysa maskaxdayda ku shubta oo ku download gareysta madaxiina ku download gareysta muhiimadu intaas weeye. dharkaan qabo maaha meeshaan marahaya maaha hareerahaygu say wegyihiin maaha muhiimadu waxa weeye inaad download gareysatid waxa maskaxdayda ku jira aqligayga iyo xigmadayda download gareyso maskaxdaada gasho oo dhagta u raarici hadal kasta oo aan ku leeyahayna u dhabagal oo maxaa la dhahaa aad ugu fiirso because waxaan muhiim ahayn malihi. cajalada waxaa laga yaabaa inay koobnaato inay dheeraatana waa laga yaabaa inay koobnaataan laga yaabaayo markii hore hadalkii iyo wixii aan rabay inaan ku gudbiyo wax iska gaaban weeye inay sii dheeraatana waa macquul oo wax badan ay maskaxda ku soo dhacdo. si kastaba ha ahaato subscribe comment share ila socodsii aqligaaga maskaxdaada ila socodsii saacaddu intay kuu tahayna ii sheeg xilliga aad ku jidhi iyo xaaladda ku jidhi ii sheeg. dadku waxa weeyaan waa lagu wada jiraa sanadka waa lagu wada jiraa 2018 waa lagu wada jiraa laakiin qof kasta xilli gooni u tahay oo isaga waqti gooni taariikh gooni uu marahayaa oo gooni isaga u ah uu marahayaa taariikh wuxuu marahayaa hadday dad bay waxa u tahay 2018 dadna sanad bay ka dambeeyaan qolo 2 sanad dambaysaa 2-3 bay dambeeyaan dadku isku taariikh maaha taariikhda waa la wada sheegtaa oo waa la dhahaa 2017 2016 baa la marahayaa waa la dhahaa laakiin runta marka laga hadlo waxa weeyaan qofba xilli bay u tahay saacad bay u tahay taariikh gooni u tahay taariikh aad adigu soo martay 10 sano ka hor waxa laga yaabaa hadda inay nin koow u tahay qof inay koow u tahay laga yaabaa. marka ii sheeg saacadda adiga ku tahay iyo taariikhda ku tahay ii sheeg ila socodsi taariikhda maraysid fikirkaagu waxa weeyaan taariikh buu marahayaa xilli buu marahayaa qof kasta 2018 kuma jiro qof kasta 2017 kuma jiro qaar baa waxay marahayaan dadka 91 qaar baa marahaya 91 markaa waxa ugu soo dhacay dagaalkii sokeeye qaar baa u cusubta dagaalkii hadda qaar baa u bilowdeen dadna way ka soo gudbeen oo waxa weeyaan qaar baa waxay dambeeyaan 500 oo sano qolob in bay dambaysaa dadku isku taariikh ma taariikh waa la wada sheegtaa laakiin dadku isku taariikh ma aha. marka aniga hadda waxaan soo wado iyo waxaan sheegayo waxay ugu fiicnaan lahaayeen inaan ogaado taariikhdu 10 sano ka hor hadda markay ii joogtay baa laga yaabaa inaan taariikhdaas baa fiicnaan lahayd waxaan hadda ku jiro ama aan rabo inaan sheego in qof ii sheego. marka dhalinyarada waxaan cajalada u soo duubay dhalinyarada naagadoonka ah doobabka
yaa u soo duubay dumar kuma jiraan dumar uma soo duubin dumar kuma jiraan way dhageysan karaan way la socon karaan xaaladdu meesha marayso laakiin cajaladaani dumar ma qusayso dumar oo dhan ma qusayso kuwa single mother-ka ah kuwa gabdhaha ma qusayso wiilasha kaliya qusaysaa wiilasha doobabka maxaa la dhahaa kuwa naagihii soo cayriyeen maxaa la dhahaa kuwa aan weligood naaga guursan kuwa aan la hadlin kuwa hadda kow ay cusub tahay kuwa ku soo daalay kuwaas bay qusaysaa odayaasha qaarkood inta dhalinyarada ku tirsan oo qaybta dhalinyarada ka midka ah da'da waaweyn waqtigu maaragtay ku batay oo laakiin weli dhalinyarada ah intay rabaan baa jireen dadkaas qusaysa cajiladani marka waxa weeye goor waa inaan intaan istaago aan focus gareeyo ama aan u soo jeesto muhiimadii kow aan videogan u soo galay because waxa haddii gaariga haddaa wadi waxa weeyaan waa inaa iska ilaalisina gaari ku dhacdid oo aad maaragtay aadan shil gelin marka haddaad tahay nin singala haddaad tahay doob haddaad tahay wiil yar oo hadda soo kacay oo ay u bilowmeen shukaansi iyo naaga raadis waxaa kugula talinhayaa talada koowaad number 1 taladan ku siinhayo oo aan rabi lahaa in lay siin lahaa 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor taladii aan jeclaan lahaa in lay siiyo sababta waxaa yeelay qof kasta oo dadku islama taliyaan waxa weeyaan tala haddii kuu sheegana qofka waxaa laga yaabaa inuu ku marin habaabiyo qofu tala runa ama wax kuu sheega dhaba ma arkayso qof kasta wuxuu rabaa inuu muus kaa tuuro oo ku habaabiyo rabaa mararka qaarkoodna qofku waxa weeyaan waqti maadaama aad saacadda ama sanadka ku jirtay adiga shakhsi ahaan sanadka gooniga ku ah oo aad maraysid yaa waxaa laga yaabaa qofku wuxuu kuu sheego inaad fahmi weydo oo because taariikhdii kuma jirtid taariikh khaldan buu kaala hadlayaa sanad khaldan 2 sano oo kala duwan baa ku jidhaan qofka hadda qof kaa weyn oo 20 sano kaa weyn iyo adiga oo 20 sano ka yar isku sanad ma joogtaan isku sanad idima aha 2018 idima wada aha qof kaste taariikh gooniyu marayaa iyadoo la wada joogo la wada nool yahay la wada soconayo wadada la wada goynayo shaah la wada cabahayo qof kaste wuxuu ku jiraa sanad gooni ah buu ku jiraa qaar baa waxay marayaan odayba waxa laga yaabaa hadda inuu marayo 2050ga intay aniga waqtigaas xilligaas meesha aqligayga uu joogo ama way aragnimadayda ama taladayda maalintaas meesha 2050ga meeshan gaari doono nin baa hadda ku jira 91kii aan ka soo gudbay qof baa hadda ku jira 95kii aan ka soo gudbay qof baa hadda ku jira qofba sanad baa u tahay gooniya marka waxa lagu sheego ayadoo sax ah baa laga yaabaa inaad fahmi weydid ama ay registraysma weydo marka ninka dhalinyarada ah oo naagaha hadda doonaya waxa kugula talinhayaa abidka wax kasta ay dhacdaba ha la hadlin naag foolxun ha la hadlin naag foolxun ha la hadlin ha shukaansanin maxaa la dhahaa ama si kasta ay noqotaba ha la hadlin ha shukaansanin naag foolxun ha la hadlin ha shukaansan hadday naagtu foolxun tahay ha la hadlin foolxumaduna meelo badan baa gashaa hal dhinac ma gasho jir keliya ha u arkin inay foolxumada gasho foolxumadu meelo badan baa gashaa waxay gashaa qofka shakhsiyad ahaantiisa dabeecadiisa aragtidiisa hadalku ku hadlayo waxaasoo dhan foolxumadu way gashaa foolxumadu ma aha mid keliya oo kuu muuqata ishu way aragtaa dhaguhu way maqlaan afku waa dhadhamiyaa waxaan foolxumadu meelo badan baa gashaa foolxun naag foolxun ha iskula hadlin waxa adigu aad foolxumo aa u fasiratid aday kuu taallaa laakiin naag foolxun ha la hadlin hataa hadday noqoto mid joor foolxun wixii aad u aragtid inay foolxun yihiin ha la hadlin naag foolxun ha la hadlin
sababta qofku uu la hadlo qof fool xun uusan ku qanacsanayn sabab badan baa keenta. sababta number 1 aniga ii geysay hadda ka hor naag fool xun haddaan la hadlo waxay ahayd waxaan islahaa way ka sahlan tahay midda quruxda badan way ka sahlan tahay baan islahaa midda quruxda badan way ka sahlan tahay baan islahaa oo maaragtay tan ayaduna way dareemaysaa waa run way dareemaysaa naagta fool xun marka la hadashid way dareemaysaa inaad ula hadashay inay fool xun tahay oo waxay og tahay haddii maaragtay ay qurux badnaan lahayd inaadan la hadasheen way og tahay oo ama waqti aa qaadan lahayd ama ay kugu adkaan lahayd inaad la hadashid marka naagta markaad la hadashid oo u timaadid foosha xun way ku og tahay inay fool xun tahay way og tahay waxayna ka dareemaysaa in aadan la hadasheen naag qurux badan inaadan la hadasheen oo maaragtay ay waqti kugu qaadan lahayd way ku dareemaysaa wax weyn dadkoo dhan way isfahmayaan way isdareemayaan way isla socdaan dadkoo dhan way isla socdaan ka wax khaldahaya iyo ka lagu khaldamahayo waxoo dhan way isfahansan yihiin khalad inuu jiro dadkoo dhan baa isfahansan marka naagta foosha xun way og tahay inaad la hadlaysid because inay fool xun tahay sidaa daraaddeed way ku dhibaysaa waxa weeyaan way ku dhibaysaa oo maaragtay way kaa jaraysaa waxaad rabtaa inay ku ciqaabto oo dembiga aad gashay inay kaa jadhay rabtaa way ku dhibaysaa marka ogow ha la hadlin hataa hadday fududahay naagaha ugu dhibka badan waa kuwa ugu foosha xun baa ugu dhib badan marka ha u malaynin khaladkii aan galay oo kale ha gelin ha is odhanin naagtu maadaama ay fool xun tahay way sahlan tahay odhanin ayadaa baa ugu dhib badan naagta markay fool xun tahay way is og tahay dembigii aad gashay bay kaa jaraysaa way ku dhibaysaa marka ha la hadlin ha u dhowaanin waxaan dhib ahayn kaaga kordhi mahayaan waa marka koobaad marka labaad adiga ma qancaysid oo qaneeco iyo waxa weeyaan iyo niyad wanaag kaaga soo kordhi mahayo dhib unbaa kaaga soo kordhaya waa khasaarada labaad weeye khasaarada saddexaad waxa weeyaan naftaadii bay jaqaysaa oo nafta kaa siibaysaa oo waxa weeyaan hadha waxaa laga yaabaa inaad daashid oo tii wixii aad rabtay nuxurkii wixii oo dhan bay kaala baxaysaa marka waxaa laga yaabaa hadhow inaan waxba kuu dhaqaalaysnayn markii aad rabtay maxaa lahaa qoladii aad ku qanacsanayd ama naagtii aad ku qanacsanayd markaa heshid waxaad noqonaysaa nin nafta laga soo siibay oo aan nafi ku jirin baad noqonaysaa oo naag foolxun nafta ay ka saadhay baad noqonaysaa oo waxba aysan ku harin waa khasaarada saddexaad waxaan rabay inaan galo ninka sababta ku kalifi kara inuu la hadlo naag fool xun ama uusan ku qanacsanayn sabab badan baa ku kalifi kara hal sabab maaha inaan faahfaahiyaan rabay taas cajalada waan diidahay inay dheeraato waxa weeyaan waxaan ku soo koobahayaa ninka dhallinyaradaayow oo naagadoonkaayow mustaqbalkaaga ka fakar 10 sano soo socda ka fakar 7 sano soo socota ka fakar waxa hadda aad ku dhaqaaqdid ama naagta hadda aad la hadashid baa waxay wax kuu geysanaysaa 10 sano soo socda dib hadda kugu dhacay ama naagta foosha xun ay kuu geysatay baa 10 sano kadib baad dareemaysaa ama waxa weeyaan yaad dhibkii dareemaysaa dhibka waxaa laga yaabaa hadda inaad dareemin 10 sano kadib baad dareemaysaa iyo ka badan marka ha isku gelin marka hore wax aad maaragtay dhib aad dareemi doontid 10 sano kadib oo maaragtay maxaa la dhahaa urug miyaa la dhahaa urug waxaa jiri jiray haddii nabar lagu dhufto midka dusha ka dilaaca iyo midkan dusha ka dilaaco inay gudaha hoose nabarku kaa gaaro urug baa la dhahaa midda hoose oo meesha fog marka naagtaas foosha xun urug bay kugu reebaysaa waxa weeyaan meel fog bay kaa dilaysaa nabar kugu muuqda kaa muuqda ku maaragtay ku gaarsiin mayso mid waxay ku gaarsiinaysaa hoose oo fog bay ku gaarsiinaysaa marka taladayda qaado naag fool xun ha la hadlin abidka ha la hadlin xanaaqna iga keeni maayo nin xanaaqsan hadda ma ahi waxa weeyaan talada waqtiga ugu fiican baa jooga oo talo la bixiyo oo ninku uusan xanaaqsanayn ama aysan cara u geenin hadalka uu leeyahay marka ka fiirso daqiiqadaha dheeraan doona ha soo gaabato abidka ha la hadlin naag fool xun abidka ha la hadlin intee rabtaa kugu qaadato
wax kasta dhib kasta mar waqtigaa rabtid xilligaa rabtid waxaan ku jir sidaa rabtid u abaarsano oo dhinaca naagaha abaariha kaaga dhacdo wax ka soo dhaca marnaba abidka ha la hadlin naag foolxun abidka ha la hadlin hadda caqligan waxaan isticmaalahayay 4 sano la soo dhaafay ma caqliga isticmaalahayay inkastoo naag la'aan ay hayso oo aan naag haysanin waan ku caafimaaday naftaydu waxay dareemaysaa istiraexay dareemaysaa naag foolxun lama hadlin 4 sano naag foolxun lama hadlin iyo naag kale toona marka caafimaad baan ka qaaday adigana caafimaad si aad u caafimaadid حتى كوا كلها كام مقنادين كوا في عنها كام مقنادين ناق فالحن مرنا بوحبك وكردين ميسو مرنا بوحبك وكردين ميسو وحن عن عذر جراء هين يدب وكردين ميسو هلا هلن كام مقناتو أنت كام مقنتاي بلايا كام مقن إلا سعودسي وحي إن أدو بكتي وحي أكسو هرشيدي كام أنت كوكر إلا سعودسي عقلي عاقا ماشو مرهايو يتوس أسوأ قرالة يتوس عقلي عاقو meeshu marahay heerku marahay aqligaagu tus subscribe share aan isdhaafsano wararka iyo aqliga aan isdhaafsano